ما ها سومالا wax loogu hanjaba calanka buluuga inanka yar ee tallaabo qaada inanka yar ee tallaabo qaada calan buluuga boorama ka taagan barta tan ku tooganina war waayo cidda loo hanjabaya waayo xiyaw ku tasho dhulka waa dhul Samaroon mid ku darso hadii badda la saxeexo anagu Soomaali way baanahay madagana lama siin karo xabashi laguma hadal qaadi karo waxba xaaraan ah hadal qaadka in la yiraahdo dhul baa laga iibinaya xabashi war anagu kajad taariikhda xabashida iyo Soomaalida u dhaxaysay ilaa waqtiga Axmed Gurre rag dagaalamayay ee dhigooga dhulka u daadinayaan nahay u dhalatay dekada sayla ama maxaydan lagu hayo waxaanu ka xignaa dhimasho waa dhul Soomaaliyeed Samaroon baana la Soomaali oo dhan u ka dhaxeeya muusa adeer waqtigaaga uu dhamaaday waraaba waqtigaaga uu dhamaaday baan leenahay waxaan aad wado wax laga yeeli karo midnaba ma ah war cidda loo hanjabaya ma Samaroon Saciid ba cajaa'ib ma dadkii gobonimada caanka ku ahaaba cajaa'ib ina yar oo abaarsa miyaale halka sanad ka calaamadinaya ayaa ka walaya xamar baa ka walaysa waxa ka walaya dadka kumitiga kugu soo qoraya sidii la sacaano isxoreeya yaa ka xoroobaysan badda alaale laakiin Soomaaliland baa maamusha dhulku waa Soomaaliland hatta rabtaa inay guurtaan dareer horta Itoobiya gala arday Itoobiya gala ah war hadda waa reer Boorama dadka saa loola hadlaya waa dadkii aqoonta iyo cilmigu biya dhigeen waa dadkii dalkooda u soo halgamay ee halgamayaasha lahaa taariikhdu xusayso ayaa maanta la leeyahay adeer guur yaa cajaa'ib baxa Itoobiya gala soo ma doonaysaa inaad dalataan soo buruuga ma doonaysaa inaad qaataan socdo garowe ka diga iswada raac oo garowe aada Muqdisho taga Soomaaliland caalam buruuga lagama taagi karo magaalada Boorama ninka ku arkay isagoo caalam buruuga ku noqnoqle oo caalam buruuga doonay inuu ka taago magaalada Boorama billaahi tullahi meel allaala meel maro lama garanayo adduunka wallahi meel maro lama aqoon lama garanayo adduunka meel maro wallahi waa la waayay meel maro la waayay warada weynagi tooni tiro xaba la hayga yaacay xageed geynaysaa maraga Samaroon bad hadda waxaad leedahay meel ay mareen waa la waayay hadday ka hadleen badooda oo ay xaq u leeyihiin inay Soomaaliyihiin is og yihiin maxaad ugu hanjabaysaa 2023 baalla wax ka yaaceen ishiisa laga arkaa baan maqli jiray ushiisa lagu dhuftaa ku socdo ninka isku daya ilaahay ka sokow ninka isku daya inuu magaalada Boorama uu ka taago calan buruuga farcanka war carud baa ka taago ina keen awoodana ee islaana Boorama ka taago calan buruuga maalintaas aan isku leeyahay waa maalintii heshiiska waa saxiixaya berbera waa ka dhigaya sayra inay xarunta Itoobiya ay noqon doonto ana ka dhigaya lug hayana ciidamada Itoobiya ara keenaya saxiixuna uu dhacaya hadii Allah wada reeyaan laakiin waxaan ogaanayaa maalintaan ogaado ama maalintaan arko Boorama oo calan buruuga laga taagay wallahi billaahi tullahi adduunka meela bartaan baa la waayay adduunka waxa la oranayaa ma dad baa ku noolaan jiray baa la oranayaa hataan maqlo ilaahay ka soo balaan maqlo Boorama waxa weeyaan calan buruuga laga taagay warananka yari han weynaa soo ka hawada koray wuxuu yiri calanka buluuga maalintaas Suulaan maalin walba Boorama calan buluuga waa laga taagay maanta ka taagnaa waxa qaldan maxaad sameyn kartaa waxaad isbedeli kartaa inay baalla wax ka yaacaan doonaysaa mar labaad 2024 baan Boorama sugeynaa inay baalla wax ka yaacayaan yeen kale adig sug calanka buluuga waayo kuwa awooyaasha lagu leeyahay weeyaan no beentiisa isugu sheekin jiray anaga hanoola iman reer Boorama waligood calanka buluuga waxa ma yeelin hadii reer Boorama cid wax yeeshay waxa yeeshay ama yeelay adeerka Muuse Juudaan baa carruurtii ka cunay 1992 hal maalin oo kaliyaata ayaa jamhadii idoor ama SNM waxay leysay ku dhawaad 800 oo reer Samaroon ah calan buruuga ha iskaga darina noloshiina ha ku ciyaarina ha iskaga darina wadadu laascaanood ay martabaati kala maraysaan nacnac fara badan looma bahana wadada laascaanood martay baa maraysaan hataan argurud aan maqlo warheeda ka yar maabu gadhiiba wuxuu dhimay misaabaarsu ka xiraysnaa diiwa warka ma hayo waryahay laascaanood wixii kaaga dhacay beedan ogeyn ballaba soconba sootii ciidankaaga la liqay maxaad mid kale reer Boorama ugu hanjabaysaa madax ciidan baa haysta
soo kuwa las caalad ku xiraysan ciidankaaga maxaa qaldan Somaliland dinamada ininka wax ku qaba ininka ayaa wax ku qaba Somaliland ininka ayaa wax ku qaba mana maqli karo bulug iyo sinjiyadii aabahood ma maqli karo waxaan idin sheegayaa fursadda waa haysataan ha iska dayicina fursadda waad haysadaan ha iska dayicina fursaddu waa marar haysatay iyo marar haysan haddii aad isku daydaan inaad fursadda aad dayacdaana dabkiina ma garanayo meel uu ku dami cidda damin doonto ma aqaano dabkiina cidda damin doonto ma aqaano maanta laandheernimada ayaa sheegan karaya anaa sheegan kara xasan sheekh maxamuud oo balanbalaya oo 400,000 oo qof oo muqdisho degan u talila oo dadkiisa la laayo oo qaramada midoobay ilaalinayso oo ciidamada midowga Afrika maalmo banaagaha Soomaaliya ay kufsanayaan ayaad moodaysaa Soomaha dad kaasa dad moodaysaa Soomaha xasan baa dad moodaysaa bulug baa dad moodaysaa Soomaha bulug waa kee waa 35 sanadood ka hor waa bulugii aan xorriyadda ka qaatay muxuu yiri xorriyad baan qaataya oo wadanku markuu xorriyad qaato soo madax banaanaan jiray qaramada midoobay calagiisa laga taagi jiray cadaysataa xawar baa laga taliyay hala yaabin aqliga u taliya beesha isaaq baba noocaas waayo ninka wiilka yar hadlaya iyo ninka madaxweynaha ka dhiganayaan waa sim aqli maanta adiga xorriyadda ku nool xorriyaddan maanta aad ku nooshay NFD lagama helo xorriyaddan maanta adigu aad ku nooshay New York lagama helo xorriyaddan maanta adigu aad ku nooshay Washington lagama helo xorriyadda adigu aad maanta ku nooshay Jarmal lagama helo maanta xorriyadda aad doonayso aad leedahay bulug baa ka taagaya Boorama why sabab ka jawaab sabab xorriyadda aad raadinaysaa maxay tahay kibir baa ku jirta Soomaha war heerde reerkii Samaroon Siciid loo oran jiray goorma ayaa qof kastaaba sidan oo kale ugu dhiiranaya goorma sidan oo dhan loogu wada dhiiraday oo wuxuu ula hadlayaa sidii ilmo yar oo dhalay oo edbinaye sabab see ku keeni kartaa see ku yeeli kartaa oo dadku maadoomaa maxay kuga xiraysan yihiin choice ma laha miya ha ku dhimanina wadada saarantiin ulbahante wadadii uu maanta u saaray wali ka musoo laaban tollaa ayuu taagay ha ku dhimanina wadada maanta taagantiin okay waxaan idin sheegayaa fursadan idin sheegaya waxay tahay ma maqli karo hadal dambe ma maqli karo nacnac dambe ma maqli karo buru dambe idinka ay dan inugu jirtaa hadda beeshii Samaroon masana loogu qoosgooyay idinka ay dan idinku jirtaa digniin baaba la siinayaa digniin hadda ogow aqligan inanka yar uu ku hadlayo waa aqliga meesha lagu maamulo isla aqligaasi waa aqliga oranaya badan iyo dhulkan ila beesha Samaroon iyo beesha Ciise iska la soo wadogsoonhay ninka isaaq ee wiilka yarka ku aqliga ah daanuba ka si aqli liidan oo intuu saxeexay caawa la leeyahay ninka la oran jiray nuuxtaani baa loo dira iyo waliba wasiirkii Samaroon isagana wasiirka shandhig miyuu ugu magacaabay xasaasa oo laakiin markuu warka maqlay iscasilay ayaa waxay aadeen si u soo dhaweeyaan ciidanka la keen rabo Seylac la keen rabo dadkii iska lahaa Seylacna waxaa la rabaa in loo edbiyo sidii ilmo yar ah oo hadeerto socod barada